Halloween waa ciida gaalada oo lagu qabto sanad walba wadan. Waxaana la qabtaa bisha Oktoobar 27 ilaa 28. Mase filaysaa mase ogtahay in mar uun lagu qaban lahaa caasimadda Sacuudi Carabiya iyo dhulkii barakaysnaa ay ka soo bilaamatay diinteena macaan una ku dhashay suubanihii nabigeena sallallahu alayhi wasallam kana aasantay diinta islaamka ee macaan. Daawadayga sharafta leh waxaa 27kii bishan aan ku jirno daraad iyo saakoontii waxaa lagu qabtay ciida Halloweenka caasimadda dalka Sacuudi Carabiya ee Riyadh. ciidan loo yaqaano Halloween waa ciid gaaladu ay aaminsan yihiin qofka marka uu dhinto inuuna qofkaasi una hogga la wada gelinaynin, yacni haragiisa iyo lafihiisa iyo maqaarkiisa iyo waxaas ay dib u soo noolaan karaan ama dib u soo noolaanayaan oo naftiisa un tagayso. qofkaasoo yacni qaab shaytaan koo kale u eg, qaab yacni bilaadan koo kale aan u ekayno, qaab yacni qof si adee ah. laakiin waxaa taasi dheer qofkaas inuu bilaa naxariis yahay, uu qof kasta uu dili karo ama uu dadka inuu dilo uu jeclaanayo sidaan ku daawanay filmaanta, ama shaytaan noqoy ama qof kale noqoy ama wuxuu dooni noqoy. Al-uudum waxay ku soo biyashubanaysaa in yacni ciidan ay tahay ciid ummadda Kristanka ama wixii aan muslim ahayn oo dhan khuseeya, balse laakiin lagu qabtay wadankii keliya ay ku faani jireen ummadda muslimka oo dhan, ayaga oo sanad walba ku fikira inay tagaan mar uun xajka Makka iyo Madiina, iyagoo maalin walba ummadda muslimiinta ahi 5 jeer u sii jeestaan dhanka ay ka xigto qiblada. balse laakiin Maxamed bin Salmaan iyo aabihii waxa ay sameynayaan dhankaas iyo waxay u sii jeedaan gaalnimada iyo kufaarnimada, sababtoo waxay ogolaanayaan in ummadda muslimiinta ah niyadda laga dhaawaco lana gaarsiiyo heer ay og yihiin inayna waxba ka ahayn dunidan maanta jirta, oo wax diin la dhaho iyo wax anagu tanaan aaminsanahay la dhaho iyo anagu tanaan aaminsanahay la dhaho iyo aysan jiri dooninba midooyinka soo socda. sababtoo ah qof walba wuxuu doono yuu aamini karaa. anagu waxaa taasaan aaminsanahay, adiguna taasaan aaminsantahay mooye wax kale oo tayada iyo ixtiraam gaar ahaan weliba diinta islaamka in wax ixtiraam ah ay u hayaan reer galbeedka ama wadamada horumaraya caalamka gaalada ah ma jirto. saasoo tahayna waxay weji kaga raadsanayaan Maraykan, Yurub, balaayo ka jinni, maxay Kristan, gaal, dhaqaale, balaayo kan. laakiin allow sahal bay noqon doontaa cid hada salaada iska tukado oo bal hada qiyaamihiiba soo dhowaan aragnaaye salaada adkaya saaxiibaya. marka saaxiibayaal duni sidaas lagu wada hadlayo faa'iido kama soo socoto wallaahi. intaasina waxa iska ahayd yani waxyaalo qiyaas ma garanaysaa sida Maxamed bin Salmaan marka uu tago Maraykanka oo kale, marka uu tago England oo kale, marka uu tago German, Faransiis, Maraykan marka uu tago yani saasaa loola hadlaa. annagu waxaan dhisaynaa annagu diinteeda waa iska daynay, idinkuna diintiina iska daaya baa la dhahaa oo magarata shacabka u daaya, shacabku waxay doonayaan ha aaminaan. arrintaas ama adduun ka socota. arrintan Halloweenkana caalamka oo dhan baa indhaha ku haya oo waa la yaabay, wax la filan waayay bay noqotay. marka xaalku waa ilaahu sahal, bal hada soo duceeya taa iska hagaagi doontaa. Wow, subhanallah, this is happening in Riyadh, Saudi Arabia. When people like me became a Muslim 31 years ago and we left behind all of this pagan holidays, it's really concerning that people that were born Muslim
are now celebrating what I left. Subhanallah. ninkaasi wuxuu ahaa asalkiisii hore yacni nin gaal ah oo soo islaamay 30 sano ka hor laakiin waxa uu la yaabay yacni waxyaalihii hore uu ka soo tegay dad maanta maaragtay ee u dabaaldegaya oo kuna dabaaldegaya Sacuudi Carabi oo wax la yaabo ku leeyahay subhanallah marka arrintan waa arrin la yaabo balatay iska agaagi doontaa يوم القيامين soo dhaweeyayna wad aragtaane salaada iyo cibaadada hal la badiyo salaada iyo cibaadada oo nay fiidiyogan xiga wassalaamu calaykum. This behind me here is the picture not from America, not from England, but from Saudi Arabia, a land which has prohibited and has banned the celebration of Mawlidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, because apparently the celebration of the birth of the Prophet of Islam is more evil than a celebration like this and a festival like Halloween. Make it make sense, someone.